السلام الله عليكم أصحابتي maantay caqliga iyo maskaxdaan dejinayna maalin walba qosol iyo kaftan iyo heesta kama sheekeyn karno. maantay waa maalinkii maskaxda. mid kamid ah haybada uu ilaahay ugu manaystay ama ugu deeqay ummadda Soomaaliyeed ayaan maanta idin soo bandhigi doonaa. haddii aan ugu cusub tahay subscribe tad waa dhiirigelin, like tad waa codsi, commentigana fikirkaaga nagu wasaaq soo wada barnaamijka faahfaahsan. inta barnaamijka ugu gudagelin waxaan rabaa legendiga weyn ee Cabdi Askari inaan u mahad celiyo oo barnaamij inaba aan caadi ahayn soo bandhigay. barnaamijkaas oo ku maamusay milicsiga sanadkii tagay ama dib u jaleecida sanadkii tagay waxyaalihii dhacay YouTube-ka iyo waliba aaladaha social media. dad fara badan oo saaxiib aqli ah oo meeshaas isugu keenay fanaaniin, YouTuber, TikToker iyo waliba dad aad u fara badan. maamuuskeeda iyo sharafkeeda inuu nasiiyay haddaan nahay saraakiisha oo wasiirka barnaamijka lagu daafuray kaalin muhiim leh oo ka qaatay. زكي بن حاجي هذا عربي خليه يا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في قناة زكي بن حاجي. يا هذا مش كويس. هذا الشيخ من بداية إلى الشيخ الحرم وبعدين إلى الفيلم. هذا مش معقول. عربنا الوقت والأبادر وجاو زكي بن حاجي oo isaga iskii ula baxay wasiirka arrimaha gudaha oo wax badan oo hoose banaanka soo dhiga. Cabdi Askari waxaan leeyahay man la yashkuru naas la yashkuru Allah. qofkan dadka u mahad celin Ilaahay u mahad celiyo. muuqaalkaas waxaan dareemayaa juhdi dheer in muuqaalada kaliya soo jarjaritaankeeda muuqaalka qofkan meel dhex ka soo qaado, kan bilow ka soo qaado, kaas meel dambe ka soo qaado, in intaas kaliya ay juhdi iyo hawl dheer tahay. marka waxa kale dhan laga yimaado aad iyo aad baad maasan tahay. ummadda Soomaaliyeed hal door ba u tahay. waan ku leeyahay Cabdi Askari waa tahay. haddii aan heli lahaa comments ka heli lahaa 100 qof oo si khaas ah igu soo qora thanks Cabdi Askari tube ama thanks walaalkeen Cabdi Askari, maanta waan ku farxi lahaa, farxad bay ahaan lahayd. waa tahay maanta waxaan jaleecaynaa wiil injineer ah oo dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Cabdullaahi. injineerada ama dhalinyarada taanantiga maskaxda fog leh ee miisaanka maskaxdooda ay leedahay inaan u mahad celino oo soo saarno oo bulshada Soomaaliyeed aan tusno waajib ina saaran bay ahayd. wiilkaas waa wiil xaqiiqatan aad iga yaabiyo waxyaalaha uu sameynayo oo wax caqliga saliimka uusan qaadan karin ama aan weligiiba ku fikirinba qof Soomaali ah oo wadan burbur ah jooga baa sidaas sameyn kara. yaanan war idinku daalinay Soomaali baa tihiin, sabarka waa idinka yaryahay, wasiir naga sii daa, bal waxaa meesha ku haysid baan leedihiin aan hal mar idin la wadaago bal muuqaalada iga yaabiyay ee wiilkaas uu sameynayo. sida halka uga jeedaan qalinkaas aad u jeedaan waa qalimaanta wax lagu marka wax alxanka alxamaya waxyaalaha lagu alxamo way. qalin qorigii aad taqaaneen ee caadiga ahaa baa laga sameeyaa. sida halka uga jeedaan qalinkii waa la qoray, fiilooyinkaas lagu xirayaa. qalin qorigii aad taqaano wax ku qori jirtay baa waxa laga sameeyaa birta waaweyn ee wax lagu alxamo ee biraha lagu dhalaaliyo baa laga sameeyaa. sida u jeedid waa waxyaalaha uu Ilaahay nagu manaystay, waxyaaluhu Ilaahay inaan ugu xamdinaqno ay lambar 2 ka tahay. in dhalinyarada sida u fikiraysa iyagoo xitaa waxbarasho tayo leh aan helin oo wadan muddo 30 sano burbur ilaa 35 sano burbur ku jiray iyagoo ku nool oo ku barbaaray inay haddana qaabkaas wax u alifi karaan. waa tahay saa u jeedaan laba fiila lagu xiray kadibna koola dhab lagu siinayaa. qalin rasaas waaye iyo qalin qori waaye waxa saar u dhahaa. waxaa la soo ogaaday baashan wax lagu qoraayo inuusan dabka waxba ka tirin camal. sida u jeedaan waa kaasa waa la xiray. hadda marka fiiladaas lagu daaraya USB-ga. fiilada USB-ga jaajar dhab la siisanayaa. dhag haye hadda lagu daaraya marka. waa mid kamid ah muuqaalada aadka ii soo jiitay ee aadka iga yaabiyay. asxaabtiga meeshin gareysay aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waa yahay bal next muuqaal aan fiirino.
asxaabtayda qaaliga ah maantana waxaan sameeyay jaajar caadi ah ayaan waxaan u bedelay mid USB la gelin karo. waxaan ku daray USB female. qaabkii aan u sameeyay videoga oo dhammaystiran waxaad ka heli kartaa YouTube-ka saaran profile-ka TikTok-ga. youtube-kiisa waa kanaa wiilkan dhalinyarada youtube-kiisa. haddii wiilkan aad booqan weydaan u malayn maayo in dad kale aad booqanaysaan. muhiim buu u yahay wiilkan inaad booqataan, waxyaalo fara badan buu soo kordhiyaa inaad mar walba niyad u dhistaan. tiimkii wasiirka furan wasiirka asxaabteeda aan jeclaa awal 39 qof bay ahaayeen, laakiinse markii ugu dambeysay 124 qof bay marayeen. aad baa mahadsantihiin. wiilkan waxaa la tuso waayahay. next aan fiirino. assalaamu calaykum. maantana waxaan tijaabiyey qalab kuu sahlaya inaad teleefonkaaga dabaysatid koronto la-aan adigoo wareejinaya diinimadaas. hadda waad ujeedaan teleefonkii uu ku socdaa. diinamadan waxaan kala soo baxay DVD hore oo halaabay. farsamadan adduunka oo dhan waa laga isticmaalaa, iyadoo original ah way jirtaa, laakiin tan anaa isku dayay. mobile yar iyo mid weynna waa ku tijaabiyey, labaduba way ku shaqaynaysaa. waxaa laga yaabaa inay isdhahaan dadka qaar neolax waxaan kaga yaabaa dhalinyarada injineerada wiilkii hore oo soo bandhigi jirna waa ogaa. neo kartoon iyo waxaa la iska soo qaadanaa. haddeer teleefon dhan oo dab kaa dhacay oo jaajar la-aan aad tahay oo alaabtaan la isaga wareejisanayo oo la iska keensado no xaaladaha qaar alaabtaasoo kale boorsaan ku qaadan lahaa. wallaahi bilaahi tallah boorsaan ku qaadan lahaa. marmar dab la-aan iyo jaajar la-aan wax iska qabsanayaan waa suranayno dhag 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 dhag. wallaahi ilaahay maskaxdooda u daayo. maasha allah maasha waa makiinada qudaarta lagu shiido, cabitaanka lagu shiido. alaabta meesha ku dhex jirta alaabta dhinac qoriga uu ka dhamaaday leewaaya wax weyn ha u malayn macna toos lagaga waala. alaabtii waxaa lagu xiray bir yaro isdhaafa lagu xirsaday. nidaamku waa saxan yahay no masakiin waay nidaamku waa saxan yahay. wiilkan Cabdullaahi ayaa la dhahaa. farsamadiisa maasha allah 100% waa cajiib waay. waa dhalinyarada u baahan in la taageero, la garab istaago. hadday dhalinyarada wadan dowladda ay helaan qalabkan yariiska ah haddeer kartoomaa isku keenayaan, ayagu waaweyn ay heli lahaayeen, kadibna wax dadka dhan anfacay soo saari lahaayeen. wallaahi waayahay. isku day kale aan fiirino. assalaamu calaykum. qalabkan waxaa lagu farsameeyey Soomaaliya, waana diinimada kasoo saarto ceelasha biyaha. mid hore ayaan sameeyey, waan ku guuldaraystay, laakiin tan waan ku guulaystay alxamdulilah. waa ujeedaan hadda waan shiday, biyihii way socdaan. waxayna ka kooban tahay bateri, diinimo, daardamiye, marwaxad yar oo ku dhex jirta labadaas caag dhexdooda, iyo tuubada lagu xiriiriyo faleembada. insha allah waxaan rajeynayaa inaan soo saari doono qalab aad u fara badan. waa haddii aan helo dhiirigelintiina iyo taageeradiina oo dhinac walba ah. waad mahadsantihiin Soomaali weyn. والله waxaan dhihi karnaa maasha allah diyan laga ilaawin mar walba maasha allah diyan laga ilaawin. waxa waaye muuqaalada aad u la yaab badan, aad u qurux badan oo ma taqaanaa soo saaray. aniga muuqaalkayga maanta favorite-ka waa muuqaalkaas u jeedaan. jaajarka intii alaab yar la iska soo qaatay la iska wareejinayo waa inaba caadi maaha. muuqaalkaas maanta wuxuu yahay muuqaalkayga favorite-ka ah. aan muuqaalka aad uga helay. kulay wiilka muuqaaladiisa way badnaayeen, intaas kulay maanta ii suurtooda inaan ka soo qaato waxyaalaha ka fara badan oo sameeyaa. Cabdullaahi YouTube-kiisa waa kana. waxaan leeyahay guuleyso saaxiib, Allah ku sharfo, sharaf iyo karaama leedahay, maskaxda Ilaahay ku daayo. insha Allah wandhay saaxiib, adigoo full engineer ah umada Soomaaliyeedna wax tarayna waa arki doonaa insha Allah. umada Soomaaliyeedna garabkaaga taagan dhalinyaradan waxaan leeyahay warwiilasha noocan oo kala oo maskaxda Ilaahay siiyay
hala garab qabto hala soo garab istaago waatahay barnaamijkeeni maanta aan ku fiirinayay dhiirigelinta dhalinyarada wiilkan injineerkan aan ku dhiirigelinay taasaan kusoo gabagabeynayaa haddii aan ugu cusubtahay subscribe-tada waa dhiirigelin like-taada waa codsi commentigana fikirkaaga nagu waysaa intaan kulmi doono barnaamijka lamid ah oo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya idin leh ciao ciao